maanta oo ah maalin Khamiis 13 Juulaay 2023 waxaan soo booqday gudoomiye Yusuf Madaale ahna duqada gobolka Banaadir wuxuu soo booqday agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir sida wada ogtiideen agaasinka waxbarashada waa hay'adda ka mas'uulka ah waxbarashada gobolka Banaadir oo adeeg bixinta waxbarashada iyo tayada waxbarashada iyo hubinta tayada waxbarashada mas'uul uga ah gudoomiyaha oo u tahay booqashadiisa saddexaad waxaa nasiib wanaag ah in maanta gudoomiyaha uu soo booqday xilli iskuulada fasax ku jiraan booqashadiisa ujeedada ugu weyn ay ahayd sidii sanad dugsiyeedkii hadda dhamaaday iyo imtixaankii qaabkii ku dhamaadeen warbixin uu heli lahaa iyo sida qorshayaasha aan diyaarinay sanad dugsiyeedka cusub warbixin looga sii lahaa gudoomiyuhu wuxuu si gaar ah iga dhageystay howlihii inoo qabsoomay dhamaadkii sanad dugsiyeedka hadii imtixaanka iyo saxista imtixaanaadka iyo qorshaha natiijada ku dhawaaqistaba sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu iga dhageystay oo warbixin guud ka siiyay qorshaha sanad dugsiyeedka soo socda 2023-2024 oo qorshahaas oo ku dhex jiri doono ballaarinta iyo baahinta iyo tayeenta adeeg bixinta waxbarashada sidoo kale waxaan warbixin guud ka siiyay qorshaha howlgelinta kunka macallin oo hadda tababar noogu jiro oo gobol Banaadir ahaan gudoomiyuhu wuxuu aad uga mahad celiyay warbixinadaas iyo shaqooyinka oo agaasinku hayo sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu la kulmay shaqaalaha gobolka shaqaalaha agaasinka oo dhameystiran oo agaasimiyaashii la talaash ku jiraan asagoo su'aalo fardi ah weydiiyay shaqaaluhu waxay fursad u heleen inay gudoomiyuhu codsiyadooda iyo challengeska iyo caqabadaha xafiiska ka jira ee la wadaagaan gudoomiyuhu wuxuu balan qaaday inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ku xalin doono kulankeenu wuxuu nagu soo dhamaaday si nabad ah